waxaa maanta si ballaaran magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer loogu soo dhaweeyay Cabdixamiid Sheekh Mustafa Aadan oo ku guuleystay tartanka kaalinta koowaad ee Quraanka Kariimka iyo waliba Maxamuud Axmed Cali oo isna ku guuleystay kaalinta saddexaad ee tartanka Quraanka Kariimka oo sanadkan lagu qabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa isla markaasna uu maalgelinayay madaxweynaha Soomaaliland baadiyada iyo dadweyne aad u tiro badan oo u badnaa culimada diinta gobolka Togdheer ayaa soo dhaweyntooda kaga hortagay duleedka degmada Qoyto ilaa 18 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga xigta magaalada Burco soo dhaweyntaasi ballaaran ee loo sameeyay kadib waxa halkaasi ka hadlay culimada salaadiin cuqaal iyo waxgarad kala duwan waxaanay dhammaantood si weyn u soo dhaweeyeen ardaydani ku guuleystay tartanka Quraanka Kariimka awalan ilaahay ayaa mahad iskale subhanahu wa ta'ala inoo suurta geliyay maalintan barakaysan ee Ramadaanka ah inaynu isugu nimaadno halkan inagoo soo dhaweynayna walaalaheenii inoogu maqnaa tartanka Hargeysa ka socday ee uu qabanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtiina waxay inoo soo hooyeen guul aad u farxad badan ilaahay waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala ardayda inuu inoo barakeeyo waalidkii ku soo tabcayna inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro sidoo kale mucallimiintii qaybta libaaxa ka qaadatay inuu iyagana ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro haddii aan ka warramo jamciyatul hidaaya anigoo afkeeda ku hadlaya waa jamciyad ka shaqaysa horumarinta kitaabka Ilaahay gaar ahaan gobolka Togdheer runtii sanadadan ugu dambeeyay waxaanu isku hawlnay sidii aanu isugu xili lahayn madaarista gobolka sidii aanu u horumarin lahayn sidii aanu waxa weeye kitaabka Ilaahay ugu shaqayn lahayn annaga waxaanu doonaynaa ay tahay horumarka kitaabka Ilaahay iyo ehelkiisa runtii wax lagu farxo la soo dhaweeyay waxa ugu wanaagsan dadka kitaabka Ilaahay sidee xambaarsan sida ardayda imika aynu soo dhaweynayno oo kale waxa walaalayaal aynu isxasuusinaynaa kaliya quraanku sida uu weyn yahay iyo sida loogu baahan yahay inaynu u dareeno weynadiisa munaasabadan oo kale ay ka muuqataa jawaais baa la bixiyaa ujeedadu taasooyinka la bixiyo iyo hadalhaynta iyo ma aha waa dareenka weyneyneed ee quraanka la siinayo ayaa qadarinta mudan waxa inoo sharafa guulaysiga aynu dariiqii xaq ah ee rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam aynu ku guulaysanay caruurteennii yaryarayd kuwa joogaana ay maanta ku dayanayaan wallahi wana farxad inaan istiqbaalkan uu yahay arday soo ku baasay xagga quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahayna u sahlay ardayda quraanka ku baasayna waxa jiro kale dadku ay ogeen labadaas quraanka soo dhameeyay Cabdixamiid iyo Maxamuud Axmed Cali labaduba waxay xaafidsan yihiin oo barnaamij hore aanu qabanay uu yahay xifd as-sahihayn al-Bukhari wa Muslim marka ma sha Allah nimankan waa culama ila 800 xadiis ay xaafidsan yihiin oo xagga xadiista ah wax badan baa la soo dhaweeyay dad qalbigoodu maran yahay xagga sarana ka qurux badan laakiin maanta waxaynu soo dhaweynaynaa nuurkii Ilaahay cidii xambaarsanayd nuurkii Ilaahay cidii xambaarsanayd adduunyadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u tashan lahaa hadii aan kitaabka quraanka dhaxoolin inaguna qaraadiis baynu ka dhignay kumana dhaqano kumana amal fallo meel buu iska yaalayo boorka ku dilay waxaynu soo dhaweynaynaa dadkii inoo qiimaha badnaa ee Ilaahay qalbigooda ku ururiyay iyagoo xaashi cad qalbigoodu yahay kitaabka quraanka ee nasalka waxaanu leenahay Ilaahay ha xifdiyo waana u baarigayna waxaanu leenahay ma sha Allah tabarakallah Ilaahay idin siyaadiyo waa mahadnaq Ilaahay tabaaraka wa ta'ala mahadnaqiisa kadib waxaan u mahadnaqaynaa oo aan mu'assasadahan iyo magacayga iyo magaalahan iyo gobolahan intaba aan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala kitaabkiisa kor u qaadkiisa ka hawlgashay oo uu ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud khayr Allah siiyo imaatika aynu hadda isugu nimi iyo ardayda aynu soo dhaweynayno iyo karaamada inta leeg ay isu keentay oo ah Ilaahay kitaabkiisa tabaaraka wa ta'ala cidda markaa fursadda suuro gelisay waa madaxweynaha waa u mahadnaqaynaa ardayda kale ee ku soo jirtay iyaguna fiilka ku soo jira ee soo higsanaya Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay u fududeeyo kuwa aan wali bilaabin
ilaahay waxaan ka baryayaa inuu iyagana dariiq ay ku bilaabi lahayn alla u fududeeyo waxaa ii farxada inaan ka soo qayb galay oo ilaahay ii fududeeyay inaan ka soo qayb galo soo dhowayntan lagu maamuusayo ardada qur-aanka tartankiisii ku guulaystay gobolka magaca u soo hooyey ee waalidkood magaca u soo hooyey ee muujiyey macallinkoodii u soo hooyey waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala iyaga u weydiinaynaa iyo ardada soo socota iyo kuwa bilaabi doona iyo kuwa imika dhigtaba ilaahay subxaana wa tacaala inuu qur-aanka u sakhiro ilaahay inuu ka ilaaliyo wax kasta oo dhiba ilaahay inuu ka xafido kuwa diinta ku sugma oo ku baaqa oo ku haga ummadooda oo ilaahay ku dila ilaahay ka dhigo waxaan kale oo aan u mahad celinaya cid kasta oo ka qayb qaadatay inay suurto gasho tartanka qur-aanka ee la qabtay ee noqonaya dhiirigelin dadkii markaa ardadii lagu dhiirigelinayo qur-aankii oo la weynaynayo aad iyo aad bay qolyahan aan ugu mahadnaqayaa ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo reer dahabshiil iyo cid kasta oo qabatay culimmadii ardada ku tacabtay culimmadii sii kala saartay cid kastoo ama maal ku taageertay ama kelmad ku taageertay ama qalbi wanaagsan ku taageertay ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waxaan halkan uga ducaynayaa carruurta yaryar ee sirtii ilaahay xambaarsan ee qur-aankii ilaahay ku shubay ee ilaahay u fududeeyey waxa aan leeyahay haddii ay cid la ilaalinaya ama cid madax ay tahay horta maanta iyagaa madaxa haddii boolgaadha la samaynayana xaafid qur-aannada ah in la raaciyo boolgaadhada oo la ilaaliyo sirtaa ilaahay ninkaa haya in laga ilaaliyo turanturada iyo cadowga intaynu ilaalinayno waxyaalo kale kuwanaa u baahan in la ilaaliyo oo la raaco waana xaqiiqada waa aragteen sudaysiba sida loo ilaaliyo xida salaada looga dhigay jamaaca in laga hadho marka waxaan leeyahay idinkana maanta madaxdii qarankaa tihiin soo barbaara ilaahay inta idinka dhiman ilaahay idin bixiyo 800 xadiis baa haysaan ciyaar ma aha waxa weeyaan waa sida laydin sheegay aan idinku ducaynay bay idin ka mid tahay inta hadhee daawanaysa la macaamadaana waxaan leeyahay sanadka dambe maaha gaari la qaatee magacaaga ku qormaya waxaan ku beejka ilaahay nin walba ilaahay baad la saaxiibaysaa ku dhawaanaysaa ag tegaysaa adiga ilaahay baa saaxiibaya nin kastoo sirta ilaahay haya adiga idinka ilaahay baa saaxiibaya ugu dambayntii soo dhowayntani ballaaran ee magaalada burco maanta loogu sameeyey cabdixamiid sheekh mustafa aadan oo ku guulaystay kaalinta koowaad ee tartanka qur-aanka kariimka iyo maxamuud axmed cali oo isna ku guulaystay tartankaasi kaalinta saddexaad ayaa ahayd soo dhowayntii ugu ballaarnayd ee ka dhacda magaalada burco